بسم الله الرحمن الرحيم. كسو دوادا معت سبين waxaan maanta galeynaa hadii alla idmo supervisor horta marka hore waa qof muhiim u ah. waa maxay supervisor? waa qof muhiim u ah socodsiinta shaqada ama shaqada ha ahaato shaqo oo dad shirkad isgaarsiineed, shirkad badeeco ka shaqeyso, shirkad koronto, shirkad xawaalad, shirkad dhul ka shaqeysa, waxay rabtaa ha ahaato hay'ad ha ahaato dowlad ha ahaato intaba waxa waaye supervisorku waa shay muhiim ah, yani qof muhiim u ah shirkadda waaye. wuxuu sameeyaa roolalkiisa iyo xaaladiisa waxa waaye waa baran doonaa oo meelo badan waa ku qaadan doonaa hadii aan leeyahay. wuxuu sameeyaa isku xiraa maamulka iyo wuxuu isku xiraa shaqaalaha front line-ka ah. horta marka koowaad maskaxda taas waxa ku qabto, yani waa qofka shirkadda ka matala hadii shirkaddan hore u soconayso iyo hadii dib u soconayso mee qofka matala waaye. waa qofka isku xira ama hadii tusaale ahaan cabashada macaamiishu ay qanci waayaan dadka ka hooseeya oo front line-ka ah loo imaanayo, waa qof shirkadda wakiilka ah maamulka u tagaanaya. tusaale ahaan qofka cabashadiisa la xalin waayo waxa la leeyahay meeshana ka sareysa loo gudbi. qofka meesha ka sareysa oo dadka front line-ka ay u gudbinayaan way qofka supervisor-ka ah. qofka supervisor-ka ah wuxuu leeyahay mas'uuliyad aad muhiim u ah ayuu leeyahay. mas'uuliyadkaas maxaa waaye? koow, baahiyaha shaqaalaha ka hooseeya inuu xalliyo, oo xalli karo oo gacantiisa ku xalli karo markuu xalliyo. haddii iska qabsi shaqaalaha ka dhaxeeya inuu xalliyo, haddii shaqaalaha xuquuq ka maqanta xuquuqdaas oo u raadiyo oo cidda ay qusayso uu ka doono, haddii shaqaaluhu cabasho iyo tabasho ay qabaan oo xalliyo, haddii shaqaalaha dhexdooda ay ismuransiin oo muran ka dhaxeeya inuu xalliyo oo cabashadaas inta dhageysto ciddi gardaran oo garsooro u noqdo. everything oo shaqaalaha la xiriira inuu xalliyo, problemska shaqaalaha ka dhaca inuu xalliyo. waxaa kaloo laga rabaa inuu ku dadaalo qanaacada shaqaalaha, aad iyo aad inuu ugu dadaalo ayaa la rabaa. inuu shaqaaluhu qanacsan yihiin, shaqada ku qanacsan yihiin, shirkaddu inay shaqaalaha faa'iido u tahay uu aaminsan yahay. laakiin lama rabo inuu qofka shaqaalaha ah oo shirkadda ka dadiyo inuu yiraahdo meeshan waxa waaye wax oo hadda halkii ah ku naxariisaya ma lahan iyo sheekadaas inuu la galo. bolisiga shirkaddana inuu ku qanciyo ayaa la rabaa shaqaalaha. sidaa idin sheegay waa qofka u dhaxeeya bahalkii ahaa maamulka iyo shaqaalaha. ya taskiyaashiisa maxaa kamid ah? maxaa yani shaqooyinka ugu badan oo qabto maxaa kamid ah? waxaa kamid ah boolisiyaasha shirkadda ama siyaasadda shirkadda u degan inuu gudbiyo, dhaqan geliyo. waxaa kaloo kamid ah inuu qorsheeyo qorshooyinka gaagaaban oo shaqada la xiriira day to day activities lahaa. maanta waxa waaye 10 macaamiil cabasho noo qabta, cabashadaas xalinaynaa. maanta inventory naga go'an, inventory-gaan doonanaynaa. maanta walkii ahaa shaqadaan nidaaminaynaa. maanta xisaabtaan tirinaynaa. maanta waxa waaye waxaas yeelaynaa. something la xiriira day to day activities ayuu qabtaa. asagoo istiraatiijiyada guud iyo waxaas ma dejiyo, wuxuu fuliyaa qorshaha maamulka ka koreeya ay u keenaan ayuu sameeyaa. wuxuu sameeyaa oo kale shaqooyinka iyo shiftiyada ayuu u kala qaybiyaa shaqaalaha ka hooseeya oo front line-ka ah ayuu sameeyaa. wuxuu kaloo sameeyaa wuu tababaraa shaqaalaha haddii uusan shaqada ku fiicnayn, tababar ayuu u sameeyaa. wuxuu kaloo sameeyaa dadka
shirkadda ka shaqeynaya ee asaga ka hooseeya inuu ka dhex abuuro jawi deganaansho ku jiro inuu ka dhex abuuro waxyaalahaas oo tirada badan wuxuu kaloo kontroolaa shaqada ayuu taskiyaasha uu qabanaya waxa kamid ah shaqada inuu kontrolo shaqada in lagu guuleystay macallada ka taagan waxyaalahaas inuu sameeyo historically maamul ahaan waxa waaye waagii hore maamul sare ayaa inta badan jiray laakiin mar walba oo la sii hormaray waagii dambe oo la helay industrial revolution waxa la yiraahdaa ama hanaqaadka warshadaha Europe ayaa macnaha waxa la sameeyay waxay sameeyaan wax la yiraahdo assistant oo qofka maamulaha ah ka caawiya oo shaqada inta badan ka xigsada waayihii hore oo xagga saxaabada iyo bahalkii ahaa Nabi Maxamed alayhi salatu wasalaam iyo kulli waajireen imaam khulafaa ar-raashidiinkii dadkii oo khulafaa ar-raashidiinka oo maamulka islaamka qabtay ayagana waajireen inay sameeyaan in qof ay shaqooyinka si daadajiyaan oo qof tusaalahan la yiraahdo beerahaas qayb ka tahay qof wax la yiraahdo bangiyada in markii bangiyada la sameeyo qof la yiraahdo ciidanka horin abaalka ama qayb ama 12 ninba nina supervisor waxyaalahaas fikir ahaan xilli hore soo bilaabatay laakiin hadda dunidan casriga ah Mareykanka oo kala qoro in tusaalahan 1800 meelahaas markii 1890 iyo 4 ama 1900kii inay xogaa wax ka soo bilaabeen laakiin يعني wax badan ka horeeyay waxa kale oo qabtaa ninka la yiraahdo supervisorku bahalkii ahaa nidaaminta iyo shaqooyinka iyo shaqaalaha hoose maamulka dhexe isku xiro waxyaalahaas oo dhan uu ka shaqeeyaa marka aad u mahadsantihiin maanta intaas supervisorka marka qof muhiim u ah shaqada intaas ayaan insha Allah rajaynaynaa inaan ku soo gabagabeeyno